Asbuucii tobnaad ayaa la marayaa Premier League, kooxda Chelsea ayaana weli hogaaminaysa. Shalay waxay u ahayd farxad weyn kooxda Chelsea kadib markii kooxaha Man City iyo Liverpool ay kufeen. Liverpool oo garoonkeeda Anfield ku ciyaareysay ayaa waxay ku kuftay kooxda Brighton, waxayna ciyaartooda ku dhamaatay 2-2, halka Man City oo garoonkeeda Etihad kusoo dhaweysay kooxda uu hogaamiyo macallin Vieira ay 2-0 dhagaha lagu dhuftay kooxda Man City, xilli daafaca qaaliga ah ee Laporte uu kaarka casaanka loo taagay ciyaartaasi. Zaha iyo cunug da'yar oo kooxda Chelsea u jira ayaa goolasha ka kala dhaliyay kooxda Man City. Chelsea 3-0 ee dhagaha waxay durtay kooxda Newcastle. Garoonka St James Park ayaa lagu ciyaarayay. Reece James ayaa wuxuu ka dhaliyay 2 gool kooxda Newcastle, taasoo ka dhigan inuu xilli ciyaareedkan yahay ciyaaryahanka ugu sareeya kooxda Chelsea gool dhalinta Premier League. 4 gool iyo 2 caawin ayuu socdaa. Da'yarkan ka soo baxay Academy-da Chelsea ayaa sanadahan u xusuubinaya waxa aan caadi ahayn. Kooxda Chelsea ayaa waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan maanta qaaradda Yurub. Sanadkii hore waxay ku guuleysteen Champions League, sanadkanna waxay ugu cad yihiin Champions League iyo xitaa Premier League, kaasoo hadda ay ku hogaaminayaan 3 dhibcood nadiif ah. Kooxda Man United ayaa sidoo kale soo kabatay 3-0 waxay uga badisay kooxda Tottenham Hotspur. Sidoo kale Arsenal ayaa waxay ka badisay kooxda Leicester City 2-0 ayayna uga badisay. Taas ayaa ka dhigtay labada kooxood ee Arsenal iyo Manchester United inay isku dhibco noqdaan.